كسو دوادا جامعة زمزم كدوادا جامعة زمزم إجماني جامعة زمزم كلية علوم الكمبيوتر كجامعة زمزم وحي ككوغان تاي 6 تخصص كوغاد oo software engineering kaasoo loogu talagalay ardayda xiiseynaysa inay barato software-ka markii qalin jabiyaan looga baahan yahay inay awood u yeeshaan inay horumarin karaan amba ay sameyn karaan software dhameystiran qaybaha ay xoogga saaraan ardayda baranaysa waxay kala tahay programming languages kala duwan data structures software engineering principles kala duwan ee jira sidoo kale software project management-ga software testing software quality assurance iyo software ethics ardayga markii uu qaato 4 sano loogu talagalay manhajka oo qalin jabiyana wuxuu awood u yeelanayaa inuu ku shaqeeyo takhasuskii uu soo bartay oo wuxuu noqon karaa web developer sidoo kale wuxuu noqon karaa mobile developer game developer system engineer cyber security engineer data scientist iyo wixii la midka ah takhasuska labaad ee aynu hayno waa robotics and artificial intelligence ahna takhasuskii ugu horeeyay ee Soomaaliya laga hirgeliyo jaamacadaha qaybaha bachelorka ardayda loo dhigayo takhasuskan waxa xoog lagu saarin doonaa in foundationska amba waxyaabaha aasaaska waa artificial intelligence sidoo kale waxyaabaha lagu dhigi doono waxaa kamid ah frameworkska kala duwan iyo programming languages kala duwan ee loo isticmaalo artificial intelligence sida Python R iyo TensorFlow sidoo kale qaybaha xoog la saari doono waxaa kamid ah data mining iyo machine learning natural language processing computer vision iyo wixii la midka ardaygu markii uu ka qalin jabiyo amba u dhameystirto manhajka loogu talagalay takhasuska artificial intelligence wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ku shaqeeyo sida artificial intelligence engineer ahaan amba artificial intelligence research scientist artificial intelligence data scientist artificial intelligence product manager iyo wixii la midka takhasuska saddexaad oo aynu hayno waa information management kaasoo loogu talagalay inay ardaydu awood u yeelato sida loola macaamilo informationska maadaama qarnigan hadda aynu joogno lagu sheego inuu yahay information age waxyaabaha xoogga lagu saari doono waxaa kamid ah information technology business management data analysis information security iyo wixii la midka ah information management qofka marka uu ka qalin jabiyo amba 4 sano takhasuska loogu talagalay uu barto waxyaabaha aba shaqooyinka uu qaban karo waxaa kamid ah information system manager business intelligence analyst data scientist iyo waxyaabo la midka ah intaan kaliya ma ahan ardayda dhammaan saddexda takhasusba waxaa laga dhisi doonaa in ay bartaan waxyaabaha laga maarmaanka u ah qofka programmerka oo kamid tahay problem solving skills communication skills teamwork skills iyo adaptability skills kulliyadu waxay leedahay 3 laab oo dhameystiran oo ardayda baahidooda inay bahaqabtiraan loogu talagalay laabka koowaad oo ah programming lab laabka labaad oo ah robotics and artificial intelligence lab iyo laabka saddexaad oo ah multimedia lab ardayda dhigata kulliyada cilmiga kombiyuutarka ee jaamacadda Zamzam waxay loogu talagalay inay wax la qaybsadaan ardayda ay asaagooda ah ee dunida meel waliba ay joogaan wax ka dhigto sidaas darteedna kulliyadu waxay markii ugu horeysay Soomaaliya ku soo kordhisay inay ardayda kulliyada ay qayb ka noqdaan communitieska caalamiga ah ee jira oo ay kamid tahay Google Developer Student Club oo ay kamid tahay GitHub Campus Expert iyo Google Women Tech Makers iyo Microsoft Ambassadors kulliyada ardayda waxaa loo diyaariyaa in inta 4 sano ay ku jiraan ay noqdaan dad wixii ay baranayeen sida loogu talagalay u barta